ولا على هالمربلة تعي وجمع سموي كوي فريين ما فهمتي دارم إن إلهي ولا عادي ولا نوع أقبله ولا على إلهي أوسه وتسكدر إمتى هو يلميجي كم قيم هو يلميجي كفقي وتسكدر إمتى لبت اللي هذا يورور كي لا هاي دارم أهد بيني سلامي ولا على خير بيني رجيني واي بسم الله ورني أرد قبل الله سبحانه وتعالى عيالك الناس وروريو أنا waxaan ku talin lahaa inta halkan saarnay أنا مقل doonto إن شاء الله wax la duubayo war ilmo dambe qurbaha isku keenno ilmo dambe ama hayraada ama haweenaada qurbaha la keenno gabadhan hadda qaraabanahay toddoba ciyaalay waxay Sacuudiga ku dhashay intaas kula ekaadeen diin wax u dhiman malaha way u dacwootay halkan ay keenay labada weeg ugu horeeyay gabdhihii baa dharka dhigtay labada weeg ugu horeeyay hadda la socaya waa gabdho cilmi maadi iyo diin Sacuudiga ku dhameeyay gabdhihii bay ku tiri salaada tukada oo dawsi Sacuudiga ugu yaqaan dhaqanka Sacuudiga wixii oo dhan ma sha Allah iyo diintii wixii hal salaada baa loo googooyay weeg ugu horeeyay weeg labaad maamadii oo ku maqan meel soo adeeg ku maqan ma ciyaalka yar yar ama wixii oo dhan gaalo u yeeray waxay dhab naga xayawaanaadka diinta islaamka inaan daw wadaay واي maamadii baa soo noqotay guriga oo finish oo cidi joogin bay u soo noqotay iyo dacwad iyo waraaqad iyo balaayi iyo saboorad hadda hooyada kaligeed baa meel la fadhiyo kaligeed baa meel la fadhiyo ilmihiina waa laga wada qaatay waxaan u sababay labada gabdhood ugu weynaa reerka واي marka niyo way arag waa leeyahay hadii Soomaaliya wax ku qaadanayaan way arag waa leeyahay wadankana wadan ilmo lagu xukumi kara ma aha waa wadan ilmaha looga tashaday marka war anaga waa weynaa baa qadiya taagan ilmo yaan la keenin siraaqada Ilaahay baa bixiyo siraaqada Ilaahay baa bixiyo wadamadan gaalada isku soo guraya lagu dhamaaday ubadka lagu waayay ee diin darada laga qaaday ubad yaan la keenin intaas ka baxay Allah barakeeyo واي niyow isha garoobkuna waa khatar weeye gabadhan xamda waa gabadh joof iyo joorad leh oo jarmalka ku unsato weeye single motherkii markaa joogay jarmalka ayaa ilaystay baa la leeyahay maadaama gabadha dheer oo qurux badan ay tahay kuwii xataa raggu xaasaskii la qabay baa ka shakiyay baa la leeyahay gabadha markaa ishii baa ku dhacda laga yaabo quraasar buu baahan Cabdiraxmaan horta waa nasiib darro muxuu ahaa isha hadda gabadhaas ma garanayo raggii waxa weeyaan ay u dhaxday single mother ay ka noqotay kul dabiiciyan ma garan karayo laakiin ma sha Allah tabarakallah gabadh Soomaaliyeed ka qurux badan meesha isticmaalaan marinaya marka nimanka nasiib darro ku dhacday ma fahantay marka waa raaliyaad meesha music iyo waxaan soo galay واي سيدا أميرة أميراي ساكوا واد أويدي وال دريمي كراين هذا سيدا سلو خضراء كوسع قبل خضراء وضد مود كصباح قف كان شمبراه وتامحوا قف كان إليسكا إليسكا قونتي اوكي ما كسعد ولا اي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دمانتي وين wada salaamaya walaal وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته صرت maxaa ka waday anigu hadii shar kuma badneen moogtay TikTok laakiin nanta xamda mala waan isku falo gareysanahay way soo gashaa marka xalay waan la socday warka dhageystay maalin horena video way ka hadlaysay leedahay ii gurmada carruurtii baa naag xumaysay oo ay gabadh leedahay muxuu haayay waa kuwa ka raystay ayaan arkayay marka mala gabadh xumaysay carruurta mala biilkii ay u dirtay wax ka xumaysay baan taan u yara fahmay ma garanaysaa xalayna walaal hawshan aan la kulmay inantan xamda waa inaan wanaagsan oo qalbi fiican saa loo wada sheegay horta oo imaan qabta oo meel sharaf la ka soo jeeda oo waxaan ku wari dhaqankii wanaagsan aa wadataa واي aad iyo aad walahi xalaan uga xumaanay waxaan ku wax laga murugoodo wax laga qiiroodo wax ma aragtay wallahi aan ilaahi loo baryo weeyaan ilmaheeduna walaal soo xilliga tiin jarka ay ku jiraan carruurta moogtaa maskaxdooda kuma filna waa xilligaas ugu daran yihiin واي in badan way kala maqnaayeen oo maaragtay ilmaha dad 4 sano ka maqantay waxaan ku khayrka iska badan wax ka sii badan waa hadalkeeda badaa واي mid kalena ku daro sida la wada sheegay warto inta qurux badan la joogiyo shoorada bale ragga hore ee fure amba hablaha carruurtan ay u dhashayna kolley waxaan ku dhihinaasiya balaayo iyagu ku jiraan laftigooda haday tira maanta carruurta baan ka haysanaya qaar baba ku xidhinaya maxay naga inoo ka xayn weeyday
ها يجي حتى أنا كم حين نقدر ويد ها أنا محي لو قدر وده هالكان ولا وحكاي مكر فعل هذه marka walaal waxa ood ka dheerna kuma dhaxan jirto inantii markay fogtahay walaal ee halkan ubad ku haysato ma tay kartaa halka bil ay dirtay hawl kalun bayadu kari kartaa ma ogtahay هذه marka waxa weeyaan horta inantaa wallahi hawlan yareen baa ku dhacday anigu hooyanahay waan dareemi karaa si xoogaan aan dareemi karaa anigu waxaan hooyo carruurta ka maqan yihiin way marka waa iyagu iska fara badan yihiin inantaa horta waa jimce waynu ducaynaynaa muxuu ahaayeen waxaana jirta iyadu xalay media u soo koraysaa bari'aadanka waa kan suuqi noqotay walaal la isugu wada yimid halkan la isugu yimid waxa bay noqotay meel la isugu garqaadaba inantaasi anigu xalay halka waxay u soo gashay horta carruurteedii hawshii u wada loonay carruurteedii baad soo kacaysan kari weyn maxaad ka hadlay ma garata marka ina iyaga ka gacan taagteen iyaga diideen horta dadka tusaysaa anigu isiri xalay taasi waa mid oo waxay oran kartaa ma ogtay waa kuwa iyaga ay xumeeyaan carruurteedii ma xumeeyaan ila waa meesha maxkamadii la iskaga dhigay adduunka marka waxa weeyaan walaalo horta waynu ducaynaynaa ilaahayna ha isku soo hadeeyo wax kasta oo dhacan imtixaano waa jiraayo amba ilaaha jirta amba wax kale ba jiraane qofka wanaagsan waa la imtixaamaa qof waliba adduunka intuu dib qaadi karayaa la saaraa haddaba samir bay u baahan tahay inay ilaahay cugsato marka waxaan leenahay walaashii halka waxaan hawada uga marinaynaa walaal ilaahayna cugso adigoo qof diin leh oo iimaan qabo oo ilaahay kulliba cugsatood iimaan qabtid haddana waa imtixaanka adduunka ambiyadii baa la imtixaamay cid kastaa la imtixaamo wanaagsan marka waxa weeyaan walaalo ilmahaana ilaahay ha kuu soo hadeeyo adduunka oo maradaada kugu gubatay ubadkaaga oo walaalo waa family problem wax ka xuni adduunka ilaahay ma jiro waa colaan gurmad lahayn baa la yidhi marka waxa weyn maanta dhan halka ka hadalna ducun bay inaga muxuu ahay nala gudboon waxa la waxaynu gurman karnaa ma jirto waan ducaynayna waan dareemi karnaa inanta maskaxdeedii baa wallahi khatar ku jirta iyadu waxay leedahay waan anigu waan is adkeyn karaayo waxaan uma baahna go'aan ma ka qaadan karaa laakiin waa hooyo waa beer go'aan ma jira waa samir taagwa baa la yiraahdaa marka wala ilaahay waxaan uga baryaynaa rabbiga raxmaanka ah inuu ilaahay ubadka xaq soo tuso in ilaahay muxuu ahaayay ka reebo dhibaatadan raggan baase qofka maartay fariidka qalbiga wanaagsan xitaa rag isma hayn karaan soo moogi marka waxa weeyaan inanta kulli waxyaabo badan baa jiray wixii showshaha soo raacayba Allah ka qaada baan leenahay aadna waan uga xumaanay single motherka jarmalka jooga gabadhan ileeyo marka quraan saar bay u baahantay wallahi amba single mother haato amba ragii furay ba haato amba cid kale ba haato ma sha Allah ma yiraahdan qof naagina naaka qurux badan maanta dunidan ma ogola anaa ku sheegaytaa anaa ku sheegay nolol iskuma ogola fariidnimo iskuma ogola qurux iskuma ogola labis iskuma ogola waa qurux daayo labis muxuha qurux ilaahay u dhaliyo daayo mar yar xun baanay dadku u ogoleen maanta dumarka shaydaan weey ma garat taanaga ku qareyna naagina naaka qurux badan haday ka casaana lama ogola qof ilaahay u dhaliyo original daynan tan ilaahay baa u dhaliyo original batana waxa ku naagana cadaan laga raac qofkan isagu cadaanka u dhashay ma dareemayo oo ilaahay bisaga dhex umadiisa isaga dhex jiraayo oo wax ilaahay u dhaliyay laakiin naagiyadu isradina si balaa qofka u dhashun bay eegi aadiya iimaanku ma laga qadaro wax badan baan aragnaa oo waa aragna ma garata ana cunina marka waxa weeyaan walaalo ilaahay ka xijaabo oo waxaan ku ori quraankaana way oranaynaa way kula talinaynaa inay quraan isa sarteen inta culimo ku fadhiisato yaa anagu gabadha dhinacayagan marka gabadha iliya wax ku dhacaan loo saacad baan u dhiibnaa saacad marka afufto reer bay noqotay imika hinda wacan mid la yiraahdo meel aan TikTok ku dhaxdo waqti miyaad aragtay war ilaahay ka baq ilaahay ka baq gabilay baan u geynay dabeetana laba neef markay ku soo rideen naqas oo reer bay noqotay hadda sida ka haysan wala waa maalin jimcaha maxkamadda halkan waxa saartay ilaahay ka baq ilaahay ka baq wala ilaahay dartii baan halka u soo kornay intaas wanaageedaynu ka hadlaynay laakiin wala day hindiyo lodii waxa sheekada inaga ilaali wala cid loo fuftaa ma jirtay way haye aadiya way waa marka waxaan u dhiibayaa Amira ma joogtaa ayna waan joogaa jimca mubaarak horta maanta calooshay xanuuntay waxaan dareemay xanuunka inta haysta halkay taagantay baan istaajay anu wax kala mooranay inta xamda carabi leeyahay waa inaan aad wanaagsan si caadiyan isku naqaanaa anagu alaabaan ka iibsan jiray inantaa ilaahay waxaan uga baryayaa muraadkeedu nacsiina in ilaahay midka ka siiyo waxaan kula talinayaa inantaa inay ilaahay la hadasho oo qiyaam leelka ay ilaahay u kacdo oo dibadna albaabada ilaahay qaraacday ilaahay waa raxiim albaabadiisu way balaqeen markas ilaahay la hadlo
waxaan kula talinayaa inay inantaas ilaahay la hadasho oo inay cid kale la hadlo waayo ilaahay isagaa qulubta oo ku barido ducaawan madlo iyo ducaayinka murugooda ee ilaahay ku barido oo ducadan weliba ku barido allahumma inni cabduka wa ibnu cabduka hadday garanayso wa ibnu amatika ducadaas duca aad u caqiibo badan ee ilaahay ku barido ilaahay albaabadiisa uu ka balaqaya hooyada markay ilmaheeda u ducaysan ilaahay ducada uga aqbala ama soo celiyo ducada hooyada caloosha aad iga xanuuntay inantaas waxaan idhaahday maba garanayo wallaahi maadaama si baraafada inantaa u aqaano waxaan dareemayaa xanuunkii dareemaysa maanta mar walba waxaan idhaahdaa si caadiyan aanu idhaahdaa halkana aan uga dirayaa inay ilaahay la hadasho oonay wax kale la hadlin ilaahay isagaa casaa wajalla isagaana kariima qulubta dadka isagaa rogroga waxaan laga yaabaa inay tahay imtixaan iyada ilaahay samirkeeda ku eegaayo wala alxamdi carabe ilaahay la hadal cidna kalena aan la hadlin habeenkii kac albaabka ilaahay garaac ilaahay waa qufuur raxiim albaabkiisa oo kaafuraya maxkamadda beri bay mashaakil bay qabsaday kadib waxaan sameeyaan garan waaye albaabka ilaahay baan garaacay wallaahi bilaahi tallaahi inaan been kuu sheegayni waqtigii laygu yidhi sidaasi ma dhacayso waqtigeedii ayay sidii dhacday marka baryada ilaahay markaad si yaqiina ku barida ilaahay masoo celinaya waxaa laga yaabaa maanta haddii ilaahay barido oo yaqiin ilaahay la hortimaado in ilaahay albaabadiisu waa awlaadadana ilaahay raxmad iyo naxariisu geliyo ilaahay waxaan ka baryayaa awlaadda yaryar inuu ilaahay qalbigooga naxariista hooyada uu ilaahay tuso ilaahay waxaan ka baryayaa boggooda iyo bogga hooyadood inuu ilaahay burcad isku mariyo ilaahay waxaan ka baryayaa waa yowm aljimca waan weyse qabaa salaatul axad salaatu duxaan u taaganahay ilaahay waxaan ka baryayaa isagaa kariima isagaa qafuura isagaa maalikal mulki isagaa koonka maamula inuu ilaahay raxmanka raxiimka hooyada iyo caruurteeda isku keeno tashuushka iyo murugada ku jirtana ilaahay ka saaro ilaahay saasaan ka baryayaa isagaa kariima yaa rabbi yaa raxiim yaa dulquwati ilmatiin yaa facaalu lii maa yuriid yaa xayu yaa qayuum ilaahay waxaan ka baryayaa murugada haysatay inuu ilaahay ka qaado ilaahay isagaa qafuura isagaa shakuura isagaa xaliima isagaa qaniya isagaa raxmaan ilaahay saasan ka baryaya hooyada aad baan uga murgooday dadkana waxaan u furayaa alfariina bilihiisaa ku shacabtiraysanin hooyada sidaa maxkamadoo kale ugu hiiliya maxay ahayd qofkii aan waxba u qaban karahayn oo afka xumida adag hayso xanuun badan bay dareemaysaa jarmal bay joogtaa caruur kale ku haysataa kuwa ka maqana waa hablo maanta waa keligeed xaggaan uma dhaqaaqi karto xaggaan uma dhaqaaqi karto af xumida unka daaya bilaa caleyk haddaydan wax kale u qaban karahayn hadday wax kale u qaban karaysaana duco ugu kaalmeeya walaalayaa xanuun badan baan dareemayaa maanta aanan weligay dareemin marka ilaah raxmaanka raxiimku culayska ha ka qaado inna maca alcusri yusra maan leeyay culays kastoo yimaadana fudayd baa ka dambeeya biidnillaahi baarintaasaan kaga baxaya maxkamadda caloosha maanta aad ii xanuunaysa walaa aad iyo aad qof kastoo dameerle kolley qofka muslimka dhibaatadiisa kuma farxo hadaad aragto adigoo ku farxaya qof kale muslina dhibaatadiisa waxaad soo gelaysaa astaantii uu sheegay nebigu caleyhi salaatu wasalaam munaafiq baad noqonaysaa haddaad qof muslina ay dhibaatadiisu ku farxad geliso waxaad noqonaysaa qof munaafiq ah ilaahay baan ka magan galna qof hooya ilaahay subxaana watacaala bogooga burcadaas mariyo waa waalid qof kastoo waalid waa dareemi karaa maxaa ka xanuun badan awlaadaadii oo dhibaato kugu haysa oo dhibaato weyn yaasiya intiina meesha saara cabdiraxmaan waa idin salaam horta dhammaantiinba asalaamu calaykum jimca mubaarak baan idin leeyahay aad baan walaala idin salaamayaa xamda carab waxaan leeyahay maaragtay ilaahay ha u fududeeyo horta nin nairobi lagu sheegaya waa qurbo caadiya dee waxaan ku waana meel xaasidkeedu badan yahay markii saa loo keenay waxa fiicnayd maaragtay iskuulle iyo dugsiyo hadda ciyaalka la geyn lahaa waxaan malaynayaa waxoogaa way mashquuli lahaayeen oo dee maaragtay gabdho yararoo 16 iyo 17 horta may kala jiraan 16 iyo 14 miya adigu waa 16 iyo 17 I think meelahaas malaynayaa iyo 18 horta way yaryar yihiin marka ilaahay walaala ha u fududeeyo waa u ducaynaynaa xamda carab waana qof daacada qofka hadduu daacad yahayna waa la dhibaa insha allah ilaahay cadowga ha ka qabto ilaahay cadowga ha ka qabto aamiin wallaba soo maa gabdhuhu waa laba gabdhood haa marka mid aabaheed qurbuu joogaa soo maa raggii dhalay meeye marka gabadha keligeed gabadha garab la-aan baa haysa booskii aabbaha yaa ka maqan meesha
ما booska abuhu ka maqan yahay aad u weyn qaarkood waxaan u maleynayaa inay burca joogaanba mid ahaan ama burca joogaa haddii maanta uu halkan diyaarad tigidhka soo goosto caawa idantiisa wuu iman karaa soo ma ogid laakiin sida walaal ragga Soomaalida waxay noqdeen xaasidiin hooyadii markay furaan ilmihiina way furayaan dhibkaas oo dhan hadda isaga uga dhawaa hadduu soo baxo caawa ku soo hooyanaya Nairobi qaran marka caruurtii sideen ka warhayay waajibka saara inuu ka warhayay maaragtay marka laakiin waa aaba Soomaaliya markuu hooyada furo ilmihiina furaya ilaahay marka xamdi qalbiga ha u qaboojiyo dadka maaragtay dhibaya ee rafaadinayana waxaan leenahay gabadhaas qof kasta waalid horta uu dareemayaa qofkii qof ugu tala galay inuu dhibana isagana ilaahay baa dhibaya markii horena qofkay u keentay aaminta walaal macaan isaan ku noqday Soomaa oo nolosh qof kasta wada maaragtay kugu noqonaya ilaahay baa og hadda gabadhii ciyaalka inay halka keento kula talisay ay saaxiibka ahaayeen ee maaragtay daacadda u ahayd waxaan dhan ku sameysay islaanta waalane cilaajka ay la yiraahdo hana baranta maxaa soo dhaxgeliyay marka kiiska kiiska kulay qofka moogtay waxa la yiri Soomaalidu waxay tiraahdaa looda iyo maaragtay dumarku tiifta isku eryadaan moogtahay marka maalinka lagu arkay inay ka jaban tahay qofaan maaragtay hadkaaga aan soo gaadhaynin qofaan noloshaada ka warhaynin mid kasta dafba ku soo leeyahay Cabdiraxmaano maalinkan cadow u jabtid marka ilaahay waxaan ka baryaa gabdhaha yararka in ilaahay hooyadood qalbiga maaragtay raxmadda hooyanimo tuso ay hooyadood u hiiliyaan oo maaragtay ilmuhu markay waqtigaas kale ku jiraan moogtay gaal ma muslimna maaha because noloshii wali waxba meel kamay arag waa waqtiga lagu leeyahay maaragtay waxay u badan waxay rabaan waqti badan oo labadii waalid siiyaan marka walaal gabdhaha yar wali nolosha maaragtay waxba kamay arag hooyadoodna qof daacado wixii ay tiraadaba ay siinaysay telefoonay halka ugu soo direysay waxaan ku mid kasta mala 16 iyo 15 bay wada wataan waxaan ku marka xamdana waa hooyooyinka aad u beerka jilicsan leh marka walaalo ilaahay maaragtay xamdi qalbiga ha u qaboojiyo gabdhaheedaas oo nabad qaba oo dib laga gaarsiinin ilaahay maaragtay meeshay jeceshahay qurbo hadaan khayr ugu jirin ilaahay ka qabto haduu khayr ugu jirin ilaahay gabdhaheeda tan imika iyadoo Nairobi joogto waalaysa haday inay qurbaas ku keentaba ma hata taasi tan imika halka iyadoo joogto hooyadeed dhibaatada u gaarsiinaysa haday qurbaa keento maxay ka filanaysaa markaa والله كل هرت عذابتي ما ركتي عبسينيسا marka ilmuhuna haduuna horta kula soo korin ba isku dabeecad ba matiin Cabdiraxmaan oo taan ugu ilmuhu haduuna kula soo korin sida isku fahantaa way adagtay maanta dhan waa ilmo degtooni ku jira amba ayay ha soo koriso amba eed ha soo koriso amba habra soo koriso marka gabdhaha yar inta badan xamda ma aragtay lama soo korin oo deeyadu waati ma aragtay xagan u soo baxday hooyadeed baa hayn jirtay hooyaduna ma aragtay maanta xamdaadii hooyadeed noo sheey dhibkaas ma qabsadeen ilaahay waxaan uga baryaa xamda hooyadeed intay noolayd maalin kaliya dhibkeeda lama arag cadawgeedana umay jabin markii hooyadeed xabaash la dhigay bay waxaan ku gabadhaasi ay Cabdiraxmaan oo ma aragtay maanta xitaa way soo raaci lahayd Nairobi ugu hayn lahayd soo ma ogid maalinkii xamda hooyadeed weyday bay saan u silcday walaalo hooyadu marka bergor ayadeed baa hayn jirtay oo maanta ma aragtay hooyadeed waxay ahayd waxaan ku iyada ma aragtay intaaba soo koriso gacanta ku haysay marka maanta xamda dhibkaas iyo rafaadkaaba ma aragteen laakiin se dawataas qadarta dhacday hooyadeed wata ka hormartay walaalo dhaqan ahaan xataa hadii la fiiriyo gabadhu xataa hadii ay 60 jir tahay ama 50 jir tahay hooyadeed kama maaranto way hooyadu boos weyn baa wallahi hooyada lagama maarmo hooyadu waa astura hooyadu waa ceel tira Cabdiraxmaan hooyadu waxaan ku uri dhibkaaga wuu dhibayaa oo ilma aad dhashay ma ogola inuu walaalo waxaan ku uri uu dhib ku dhaco oo sida adikaaga fikiraysa u leedahay ilaahu gabadhaada iyo ka xumaanin ilaahay guri xalaal gee ay kuwad adigu dhashin walaalo macaan uga fikiraysa marka hooyadu baa waa lama huraan ilaahayow intii hooyooyin haysatana yaa rabbi ilaahayow waxaan ku xaq garansii gabdhaha yar yarna ilaahayow hooyadood qalbigooda u soo jeedi maalinkay dhalaan bay arki doonaan noloshu waxay tahay yaa
marka walaala xamda maanta dhibka iyo rafaadkaaba maaragtay ilaahay ha isku dhiibto ilaahayga hooyadeed ka hormariyay ha isku dhiibto xamda waa xamda mid labaad waa gabadh qaali oo aad u qalbi wanaagsan qofku hadduu qalbi wanaagsan yahay dhib kastaa ku dhaca هذه marka hooyadu waa shay aan la heli kareynin daldalaalkaaga oo dhan bay walaala asturaysaa daldalaalkaaga oo dhan bay asturaysaa arki maysid baan ku yiri wax dhiba inta hooyadaa ku nooshay laakiinse maalinkaad hooyadaa weydid ولا هذا كعنيس أم بيروا أم بوينو أم بقف يرها أم بقف وينها لا جماعة يا بنا هذه مركا إلهي حمده حنو قبرينا إن ما ركتي إلهي أجرجاره وضد كاري بينا علامتك دجال الله كموتشي وبرج معاد والله ولا قفك بالآذن كلا مرة بهدوك آمنوا واي هذه واي الرويلو محمد أيوان سلام ولا سلام الله جمع مرة نادر صلى عليه سيدا يسوق قبض لايد محل لاين إن هذا أنا سلامي مكيره الرأي أو حلقة يا بيني بيسي تاي سيدا إن هذا هرت مركو جور سوون السلامة يا كور النبي هلا قصة صلى الله عليه وسلم وجمع واحد ذي شيء يا ولا لا inantan wax dhib weyn walaala ma jirto anu waxaan u arkaa imika idinkaaba dhib u sameynayaba caruur iyo hooyadeed isku dhacay wax weyn maaha walaalo waa inan fariida waa inan caruurteedii halkaa keensatay imika taluun baa u bannaan in gaar loola taliyo leedhaa yani wadankooda caruurta ku fiican yihiin ha loo daayo hana loo duceeyo laakiin walaal waxaan aad waaweyneynaysaan qalbigeeda allaha u kabo dhibka allaha ka qabto idinkiibaaba ka dhigaya inantiina wax ku dhaceen maxaa ma waalid iyo ilmihiisa isku dhacay ma wax weyn baa social media هذا له واحد اللي يسوي ضحك على وصعوا ولا دب ملأ وان كاجري إنك استون إني رد ما يسني أنا إنت اسمه ربنا شيء يقرأ له ولا الرويال ولا وحنا ندي شيء يعني دب ما يدعين غيري ما يدعين دب إن أنت عرور لك ما قاعدين عرور تهال كان ما إيمانين عرور يرى أنت قرب لك يعني هو يدود سوشيال ميديا هنبا وحماية وحن وحواوين كدقة وحوين ولا على متشرو حمد عرب وين أنت قروح تبضن إيش شرفت لي عرور تدي هاي ستا الماضي ريال ورا عبد الرحمن وكنت عايدة حبلها ريش إسحاق وحكور ميلها أنا كين إني قاعد بنكو سلام يا نادرين أنت وحما قبتي ودعية داسة وحلا وحكور عاي متشرتو حمدنا هلا الله لقول هذا لايف كتشوتشي وحما ماشي نادر ميلان عرور تدي يدنا وادد كايس دلي حبلها شرفت اللي حجابني قروح تبضن ويان دبعت متشرتين نادرات بندي سلام يا ورا حبلا ويدين كنا دعية ودبعت متشرتي وحما يدعينا هاد بندي سلام يا ويدكتان مدن يوم عبد الله وحرب إن هالمر لها الله أميرة ويدكتي وحرب إن هالمر لها الله بكوس ولا دبات وحين واحد دبات وجرتا إن مهي هذا الشيء اللي جوسه أديك سنة إن مهي هذا الشيء اللي جوسه أديك سنة يوم نقولي إن ما هذا فيديو ولا هيا إن ما هذا ما أنك تتصور فالح أنت اللي جوسه دتشيو ورهوية كستدري ما يسا حمدي ما أنت دبك هايست والله دبك حنون ونشري إلهي وحن كل قلبك هاوكبه إن ما إن يقولي قبلهم مثل بعد ويلاش عاد بيقول نقولين قبل ير أو اللي هي تمنشرت أو 20 تمنشر كلا